muddahaatan laga joogo 60 sannadood dagaalkii qaboobaa waxa uu marayay xilligiisii ugu kululaa ee ay horseedka ka ahaayeen Mareykanka iyo Midowga Sofiyeeti isagoo mid kasta oo labadooda ka mid isku dayay inuu kale kaga hormaro dhinacyada farsamada tiknoolajiyadda quwadda nukliyeerka iyo sahminta hawada sare dariiqo kasta oo uu marayo iyo qiimo kasta oo ku kacayaba qarxintii labada qunbulo durriye ee Mareykanku ku dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Japan waxay xilligaas Sofiyeetku kaga jawaabeen qarxinta qunbuladii ugu horeysay ee hydrogen ah taasoo 10 jeer ka quwad weynayd kuwii lagu dhuftay Japan mar labaadna waxay Sofiyeetku ku horumareen dhanka hawada sare kadib markii ay dayax-gacmeedkii u horeeyay taariikhda kor fadhiisiyeen dayaxa dushiisa iyadoo Mareykanku aanay ka caafimaadin ihaanada tan iyo markii ay qaab farsamo bani aadan dayaxa dushiisa ku geeyeen qofkii ugu horeeyay isku hormaadkii dhanka tartankooda ee ugu kululaa waxa uu ahaa markii ay Mareykanku isku dayeen inay qunbulad nooca hydrogen-ta ku dulqarxiyaan dayaxa dushiisa iyagoo ruushka iyo basharka aadamaha ee kale ee dunida ku dhaqaniba indhahooda ku daawanaya intaa ka bacdina aqalka cad waxa ay ka dalbadeen ciidamada cirka inay daraasad ka keenaan sidii hawlgalka loo guda geli lahaa hawlgalka oo loogu magac daray hawlgalkii 119aad xilli haddaba ay Mareykanku ku sii adkaysanayaan dhamaystirka mashruuca ay ku qarxin lahaayeen dayaxa ayaa hay'adaha sirdoonka ee dalka Mareykanku waxay ogaadeen in Sofiyeetkuna wadaan mashruuc kooda la mid ah oo ay ku duqeynayaan dayaxa mashruuca oo loo bixiyay EFO waxaana shakiga mashruuca Sofiyeetku sii kordhay markii ay dayaxa dushiisa geeyeen dayax-gacmeedkii Luna oo aanay cidina saarnay waqti ka bacdina ay u direen dayax-gacmeedkii kale ee Luna 3 oo ay sawir kaga soo ururiyeen dayaxa dushiisa xilliga Mareykanku waxay ogaadeen khatarta uu leeyahay mashruucooda ay ku doonayaan inay ku qarxiyaan dayaxa iyagoo isweydiiyay sababta ay Sofiyeetku labada dayax-gacmeed ee ay dayaxa geeyeen midna u saari waayeen atomika bam ay ku qarxiyaan dayaxaba waxaase la sheegay inay Sofiyeetku xilliga ka cabsi qabeen in haddii ay dayaxa duqeeyaan oo ay ku dhuftaan qunbulada atomikada inay dib ugu soo noqon karto dhulka korkiisa wixii xilliga ka dambeeyay labada wadan waxay bilaabeen wada hadal qarsoodi oo lagu joojinayo qaraxyada atomikada ee dayaxa dushiisa waxaana ay wada hadalladaas u ekaayeen kuwa heshiis laga gaaray iyadoo wixii xilliga ka dambeeyay labadooduba joojiyeen oo kansalay mashaariicdii dhanka militariga ee dayaxa dushiisa laguna soo koobay tartankoodii hawada sare mid ku taxalluqa dhanka rayidka tartanka oo ay ka faa'iideysteen Mareykanku markii ay dayaxa dushiisa geeyeen qofkii aadamaha ee ugu horeeyay sanadkii 1969 si kastaba ha ahaatee inkastoo Mareykanku siyaasad ahaan joojiyeen mashruuca ay ku qarxin lahaayeen dayaxa haddana arrintaasi waxay ilaa maanta tahay mid ay ku haminayaan ciidamada cirka ee dalkaasi iyadoo muddada ka bacdi ay ugu yaraan 2 jeer oo dambe soo hadal qaadeen abaabulka mashruucaasi laakiin waxa ka hor yimid labada jeerba golaha Koongareeska ee Mareykanka oo ku diiday dhaqaalaha badan ee ku bixi lahaa